ismaaciil cumar geelle dagaalkaasi badheedha buu ugu jiraa arrinta iyada dhexdhexaad kama noqon karo waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan cid kasta oo warkani gaadhayo dawladaha deriska beesha caalamka in duqayntii ugu xumeeday xalay Laascaanood ka dhacday taasoo muddo soo socotay ayna ahayd tii ugu faraha badnayd xalay fiidkii la bilaabay taasi waa qodobka kale waxaan rabaa inaan kelmad iraahdo rag fara badan oo Hargeysa ka hadlayay qolada Gadhxijis waxaan rabaa ee shalaytu hadlaysay waxgaradka ah anigoo salaamaya inaan kelmad iraahdo ilmaadareyaalow anigu markii aan yaraa ee aan garaadsaday annagoo dhalinyaro geela waxaan ugu hees jiray hartiye saaq sidii hoban daba weyn hartiye saaq sidii loo helay loogu hadaliyo looguma heshiin waynu isleen jiray waynu heshiin jiray tol iyo derisna waana wax badanna waa ina ka dhaxeeyaan laakiinse markaynu isleen jiray waxaynu isku leen jiray waxaynu garaan oo ah kuraas geel iyo dal iyo damac inta way isku leen jiray maanta waxa aad Laascaanood ugu soo duusheen ciidamadiinu ay Laascaanood dadka ugu xansuuqayaan ma garanayno dagaalka qolada habar awal oo hogaaminaysa waxa ay ku dagaalamayaan waanu garanaynaa waqtigii mudaxileedkii kursiga ay hayeen baa dhamaaday waxay siyaasadii ka gashay in Laascaanood dadkeeda la duqeeyo oo la xanaaqo iyagu waxay ku dagaalamayaan waanu garanaynaa laakiin qolada Gadhxijis waxaanu isniin marka ay qolada hawar istiri ku muddo kororsada xansuuqa iyo garaacista Laascaanood saaqna ku kiciya mucaaradkana iskaga jabiya haboonidiin inaad garaweydaan baan filayaa nin la oran jiray maaweel baa nin barhayare la yiraahdo in adeerkiisa Sacuudiga uga tago markaas wuxuu damcay inuu boqor ka dhigo deedna maalintii dambe isagoo tijaabinaya wuxuu yiri maxaan ku qabtay markaas uu shaar iyo surwaal qurux badan iibi ما ويلو قبل وحي هعبط وحي عام بوها بها عاقلكي بري عمامد بو قادن جيري مالين لا يسعناي هعبط بادون بان لها عاون يلانا waxaan kugu caqiibayn lahaa عين ابو فرس markaad cugatay shaar iyo surwaal sida caruurtu la canuufadii dib baan kaaga laqay kaana cawdsaday qolada Gadhxijis waxaan leeyahay sharito hadlisi waxaanu islahayn markii qolada habar wal ay istiri ku muddo kororsada in Laascaanood la duqeeyo oo la xansuuqo baasha way fahmayaano tarahooda ilaashanayaan waxay oranayaan hadii baydankeeda leeyahay war dagaalkana la joojiyo oo ka daaya magaalada xansuuqa systemkana mudaxileedkiisii waa dhamaaday doorashaha la qabto oo Hargeysa doorashaha laga qabto anaga doorasho naga suuroobi mayso waxa wayna kama dhaxeeyaan oo door dhexdhexaad ah bay qaadan lahaayeen oo maanta hadii baydankeeda leeyahay tarahooda ilaashan lahaayeen haddii aad gooja caday iyo odagoy iyo madaafiicda nagaraacas aad shiishirida iyo cabeeyo aad ka wada noqotaan waa nasiibkiin Gadhxijis intaas aan leeyahay halka idin dhaafi maayo culimadii hadlaysay waxaan leeyahay waxaan filayaa Soomaali inaad isnacdeen waxaan idin hor lahaa Ilaahay isnacinina oo ka daaya fadwada qabyaalada ka daaya taana intaas aan leeyahay dawladaha deriska iyo beesha caalamka iyo dadka xabad joojinta leh xabad joojin hal sameeyana waxaan leeyahay 1922 ayaa ciidan Ingiriis iyo Isaaq iyo Xabashi iswataaniman ugaadeen oo awaare degan ku duuleen dagaal fara badan baa dhacay oo nimankii ugaadeen way isdifaaceen iyagoo lagu soo duulo lagu gardaran yahay ugaadeenkii la yiri xabadda joojiyo arrintii bay aad uga yaabeen deedna nin ugaadeen gabay ku jawaabay su'aashii ku filan wuxuu yiri irdaa gabay islaanu bariyahan uguma ognayn aflagaadadiisa nabcaay aana gudobeed aniga iyo doorna way saragnacayna ajashan ka gooyo iyo waxaan ku ijtihaaday ajar baan ka deeyaa sidii ehelkii reer caad ragale xabadda hal la joojiyo war anagu xabad ma wadno ilmaadeerayo anaga ciidankaasi way saragnacayna waxay laayeen maatadayadii gabdhahayagii culimadayadii aqoon-yahanayagii cuqaashayadii waxa la dumiyay magaaladii xabadii baan ugu socotaa anaga ciidankaas waanu kala dhimanay waanuna is aragnacayna suurtagal ma aha gooja cadayagoo jooga ama ari cadeeyo jooga ama canjiid jooga ama tuula samakaab jooga ama yagoori jooga ama guumeys jooga inay suurtagal noqoto inay xabadu istaagto waayo intaaba waxa degan dadkii ay xansuuqeen
waxaan rabnaa ciidanka in oog la geeyo marka oog la geeyo cidii qabanaysa reerka iyo dadka waqooyi ka soo duulay diyaar baanu anagu duulimaadna maahi nabadna waanu doonaynaa taana intaasaan leeyahay waxaan rabaa inaan kaloo cadeeyo Ismaaciil Cumar Geelle dagaalkaasi bareedha buu ugu jiraa arrinta iyada dhexdhexaad kama noqon karo hubkiisii iyo raggiisii iyo kaartadiisii iyo diyaaradihiisii basaasiinta wax basaasayay iyo khadkii telefoonada wax ugu fududeynayo intaba dagaal buu kaga jiraa Ismaaciil Cumar Geelle arrinta annaga iyo ciidankaana dhex marasa iyo siyaasadaas Hargeysa dhexdhexaad kama noqon karo intaasaan uma dow sheegaya wabillahi tawfiiq dadka faraha badan ee reer waqooyiga ee dhaqan leh ee siyaasiyiin leh ee culimo leh ee aragtidooda iyaguna cabiray ee ay ahayn dadka qabyaaladda iyo caadifada iyo sida kooban u fikiraya lambar 1 boqor Cismaan Buurmadow aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa xildhibaan Axmed Khaliif oo isna sida xaqiiqda u hadlay oo waxa jira ka hadlay oo maanta qofku waxa loo baahan yahay inuu san qof beena noqon wuxuu yahay hadii ay cadaato oo hadii ay cakiranto arrin ay caqdiga wada codkar kale u baahan tahay oo calool adag waxa maanta isaaqna ku filan annagana nagu filan ninka Ilaahay ka baqaya ee raganimada leh ee fikirka caadiga abaari kara ee ku dhiiran kara laakiinse odayaal in la soo ururiyo aan maanta oran karayn systemka wardadka ka daaya garaacista iyo xasuuqa ka daaya wax suurtagal ma noqonayso